gabadhan Soomaaliyeed waxaa saacadihii ugu dambeeyay ee baraha bulshada ee dadka ku wadaagaan ee aad u qabsatay waa gabadh Soomaaliyeed oo ordaha ka socda dalka China u matalaysa inay kaga qayb qaadato tartanka ordada ee dalkaasi ka dhacaya ayadoo matalayso Soomaaliya. Goordhow waxaa wasiirka warbaahinta uu la hadlay sheegay inuusan waxba ka ogeyn diritaanka gabadhan la diray iyo habraaci gabadhan loo maray in la xulo sidaasna ay ugu matasho qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale wasiirka wasaaradda sportska ee dhalinyarada Soomaaliya wuxuu xusay in gabadhan ay wasaaradda aysan wakiil ka ahayn wakiil ay ka tahay midowga jaamacadaha dalka sida uu warbaahinta caawa u sheegay. wasaaradda dhalinyarada sportska ayaa xusay in dabagal uu ku socdo qaabkii ay gabadhan ku baxday ama qaabkii ay gabadhan ku matashay qaran dhan ayadoo aan ognahay in ceeb weyn ay ka soo gaartay tartankii ay ku matalaysay waa sida ay ayadu sheegtay inay Soomaali matalaysay dalkaasi China. waxaa saacadihii u dambeeyay la arkay ayadoo tartankii tiimkii kale ee wadamada kale ay ka socday inay tartankii isaga hartay ama ay iskaga dhigaysay si macnaha qof orday oo kala. marka Soomaalida inta badan waxay diiradda ku saareen maanta saacadihii ugu dambeeyay ka hadalka gabadhani oo maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada qabsatay ka hor intaysan tartankan ka qayb galin iyo kadib natiijada ay tartankan kala kulantay. aan daawano wasiirka oo shir jaraa'id caawa ku qabtay wasaaradda dhalinyarada sportska ee dalka oo si faahfaahsan uga hadlayo arrinta gabadha ee saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu wada hadlayay. marka wasiirkan dhageysano waxa uu ka yiri iyo sida uu ugu jawaabay eedeynta loo soo jeediyay wasaaraddiisa. sidoo kale wasiirka wuxuu sheegayaa in markii u dambeysay uusan waxba kala socon arrintan balse uu saacadihii u dambeeyay ay kusoo wargeliyeen safaaradda dalka China ee Soomaaliya taas oo ugu dambeyntii sababtay in agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada sportska uu garoonka adaacadda uu ka sagootay gabadha. bal wasiirkaas la dhageysano hadaladiisii waxaa ka mid ahaa bismillahir rahmanir rahiim. marka hore waxaan halkan caawa aan u joognaa waan shirkan jaraad u qabanaynaa inaan xogaa cadeyno arrimihii yaraaye maanta ilaa galabta la isla dhexmarayay baraha bulshada. hore horta waxaan rabnaa wasaaradda ahaan horta inaan cadeyno koobka ama tartanka nooca uu ahaa tartanka ma ahayn tartan heer caalami ama heer amiin ma ahayn qaran. wuxuu ahaa tartanka cayaaraha jaamacadaha Soomaaliya waxaa ku matalaysay sida ay noo sheegeen qolihii maxay lahaa hawshaas soo abaabulay gabar u tartamaysay mid ka mid ah jaamacadaha dalka sida ay xogta ay nagu siiyeen walow aan baaritaan badan sii samayn doono. runtii waxaa meesha ka dhacay horta ama ciyaarta meesha ka dhacday waxay ciyaar oo aan heer qaran ahayn heer jaamacadeed ahayd. intaas kadib Soomaaliya waxaa uga qayb galay sidaad aragteen baraha bulshada ama dadka ay wada arkeen ama inta badan inuu soo address gareynayaan gabadha kaliya ee xoogaa negative-ka game-ka kasoo noqotay laakiin waxaa jirta dhanka kale inaan u hambaliyeyno wiil aad u dadaalay ciyaaryahan heer qaran ciyaaryahanada ku tababarto xulkeena qaranka ee orodada u tababartay ku xareysan magaalada Addis Ababa ciyaaryahan Ido kaasoo ciyaarta wareegii koowaadna kaalinta afraad ka galay natiijo fiican keenay una gudbay hadda wareegiisa labaad. waxaa leenahay ciyaaryahan Ido hambaliyo. sidoo kale waxaan u hambaliyeynaynaa ayadan hambaliyo leenahay gabadha dadaashay ee meesha tagtay ciyaartaas inay ka qayb gasho ku dhiiratay laakiin sida ay ku tagtay ama sifada ay kusoo mataqaana ciyaarahaas lagu xulay ay ahayn sifo ay wasaaraddu ogeed. waxaan rabaa inaan clarification yar u laabto. wasaaraddu annaga hadda maamulka cusub intaan joogno waa 11 bilood xukuumaddan hadda aan ka tirsannahay dan qaran 11 bilood aan joognay waxaan inta badan aan xooga saareynay wada shaqeynta
iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay-adda olombikada ama guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed. annagu waxaan doorka mar walba saarayna marka xiriiradu inaan roolkooda siino, roolka wasaaraddan aan ugu sheegayna. laakiin inta badan waxaa dhicaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo oo kale. hadda tusaale, wasaaraddu inta badan waxaa lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soon jireen ahaa ee u samaysnaa xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan, siday doonaanba ha kusoo xulaane ay kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxaayo ciyaaryahan fulaan meel fulaan u baxaa. keliya un ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhaha lagu soo wargeliyo qofka sagootinta kulanka sagootinta. sidaad arkayseen kulanka sagootinta ayaa wasaaradda inta badan lagu soo mataqaanaa casumaa ciyaaryahanada ama markii ay baxayaan team xagga dibadda aadayo. laakiin xaqiiqdiya waxay tahay kalsooniya waxaan ku qabnay ama kalsooni badan siinayn xiriirada bacdamaa ay muddadii gaabka ee dowladnimadii jirta ay kasoo shaqeynayaan howlahan ay ayagu usoo dhabar adeegeen. ayaga waxaan ku kalsooneyn wixii iyo qaabka ay wax usoo xulayeen. laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma ahayn munaasab ku ahaa dadka Soomaaliyeed, wax ma ahayn munaasab ku ah ummadda Soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan. runtii ka wasaarad ahaan aadaan uga xunnahay, waan ka raaligelinaynaa bulshada Soomaaliyeed. waxaan u caddeynaynaa wadiifada ay mataqaanaa waxaas ku dhaceen inay wasaaraddu wax rool ku lahayn, qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas-uuliyada ay ku lahayn. sababtoo ah qof markuu ciyaaryahan heer caalami aadayo ama markuu aadayo qaran, waxaa sax ah marka hore inuu kusoo baxo qualifiedka ama tartanka. tusaale hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacadu ahaa ee ka dhacay dalka China. tartanka jaamacadaha qofka dibadda aadaya ee waddan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha, waxaa fiicneed in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabka inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan, ardayda jaamacadaha la tartansiiyo, qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga ah loo ofargareeyo ama loo qaado dibadda. sidii saxasaas ahayd. laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan munaasabadaas ay lahayd. xiriir markaan la sameynay ururada jaamacadahana waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kala socon, waxa meesha ka dhacana aysan ahayn wax ka warqabaan. marka waxaan rabaa inaan usoo laabno gunaanadkii arrinta meesha ka dhacday ah foolxumada badneed, magaca Soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka Soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habbooneyn. mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas kasoo shaqaysay, waxaan ka wasaarad ahaan hadduu ilaa yaraado aan samayn doonaa dabagal iyo maxaa la dhahaa la xisaabtan. waxaan hubinaynaa hadduu ilaa yaraado waxaan sida lagu soo xulay siday ku dhaceen. runtii mana ahayn waxaan annaga aada ugu faraxsaneyn. intaas markaan oga gudbo arrinta ah hadday ciyaartooy dibadda aadayso ama ay ciyaaryahan individual ciyaaryahanada ama xulalkeena qaranka ama xiriiradeen way kala duwan yihiin. waxaa jiro individual, waxaa jiro kooxo. si kastay noqoto waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego caawa wasaaraddu marna raalli kama noqon doonto ama ma dhici doonto inay wasaaraddu aqbasho koox ama xiriir inay dhahaan waxaan soo diyaarinay ciyaartooy, waxaan soo diyaarinay koox ku matalayso xulkeena qaranka Soomaaliya dibadda safara ah. waxaan rabaa halkaan caawa inaan uga faa'iidaysto u sheego ma dhici doonto xiriir si iskiisa intuu wuxuu rabo iska soo walaaqa ama qofkuu rabo soo xusho ama liiskuu rabo keensado ay wasaaraddu sidaa ku ambibixis. ma dhici doonto. wasaaraddu roolka ay leedahay inay ka qaadato, xiriiradana rool ay leeyihiin. markay timaado national ama heer qaran ama ciyaaryahan dibadda loo diraayo, wasaaraddu waxay leedahay korjoogteen. waxay kaloo wasaaraddu leedahay wax la yiraahdo maxay tole inay ogaato nidaamka iyo barsiiska oo kusoo baxay qofkaas. waxaan rabaa marka inaan halkaan uga faa'iidaysto xiriirada kala duwan ee dalka inay ka digtoonaadaan sida aan munaasibka ahayn ciyaartooyda ay kusoo xulayaan. waxaan rabnaa inaan uga digno xiriirka sifooyinkaas ama waxaasi ku kaca ama ku dhaqma inaan dib u fiirin doono sharciyadiisa iyo shaqooyinka wada shaqeynta ee la leedahay wasaaradda. waxaan dib u fiirin doonaa jiritaankiisa xiriir ahaan, maxaa yeele marna raalli ma ka noqon doono sharafka iyo calanka ummadda Soomaaliyeed meelaan munaasab ahayn in si aan munaasab ahayn loo geeyo. waxaan rabaa inaan arrinkaasi aan cod dheer uga digo xiriirada
kala duwan ee arrimahaasi gacanta ku hayo waxaan rabnaa qof kastoo howl qaran hayo in wasaaradda la soo xiriiro wasaaradduna ay rool ku lahaato korjoogteynta nidaamka qaabka ay ku imaanayaan aan la soconno kadibna aan u fududeyno markaan xaqiijino inuu ciyaaryahan qaran kasoo bixi karo quality ahaan inaan u fududeyno waxaan rabaa inaan arrintaas aan aad u cadeyno aan ku kala fikireen waa mahadsantihiin baadin saxaafadda wixii aad ka qabtiina waa idinkaga jawaabi doonaa